آمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهرين وعن هالكن وجمهد علينا إلهي سبحانه وتعالى مرلباتك وحنادي ذوقهم هالنقيا هوينك هبلها يهويوينك مدشن بلان بروح ضبضن سواء عمري كسو غيب قلي سيدو كله وحنادي أديك نوجم هذا علينا يا دليرة دايرتها يجونا حفلة كسوغان علماء عقاشة سياسيين تا وحجرتك بعض الصحافة يعيد كستو قوتن كسوغان ما هنكدب حفلة دين العاوة أورانتيا حفلة دالية ذو قيمة بدن الله جوحو تشينيو لكجنا هالليو nabadgelyada iyo xasiloonida caasimadda Hargeysa iyo guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikh yaro kooban hadaan idinka warramo oo la xiriidha howlaha nabadgelyada iyo xasiloonida qiimaha lagu joogto muddo 7 sanadood ayaan anigu caasimadda Hargeysa madax ka ahaa nabadgelyadeeda oo habeenimo maalinba ka shaqeynayay run ahaantiina muddada 7 sanadood ahaa waxa ugu qiimaha badan aan nafteena aan ku hawlgalay waxay ahayd in habeenimo maalin dadka caasimadda Hargeysa ay ku soo toosaan nabadgelyo kuna seexdaan nabadgelyo waxyaabaha ugu dhibaatada badnaa aan markan xafiiska joogay igu warwarka badnaana waxay ahayd xasaradaha la xiriira iska horimaadiyada haday mudaharaatay haday isku dhactay haday tay dhalinyarada kooxaysiga iyo waxyaabaha rashfadaha u buura waynu dareemi karnaa mudaharaadadu waxay horiyaan colaado kolka dambe isku bedela fawdo iyo rabshado iyo dagaal aan loo maare helin qaboojintiisa way furayeen tartanada siyaasigii illa tartamo oo waxa weeyaan dhinac walba la iska garab galo hase yeeshee waxa mar walba muhiim ah in hanaanka nabadgelyo ay Soomaaliland ku caanamaashay la ilaaliyo gaar ahaan hablaha iyo haweenka iyo dhalinyarada oo ah hooyooyinkii iyo mustaqbalkii iyo wixii wadankani u lahaa hadii aan ka hadlo hawlo si xidhiidha nabadgelyadaasi cid gaarka ay u tahay waa ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan oo ay ugu horeeyaan ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo run ahaantii aynu ognahay xuquuqda iyo duruufta ay ku shaqeeyaan inay tahay mid aad iyo kooban haddana habeen iyo maalin meel kasta oo la joogaba waxay heegan u yihiin sugitaanka nabadgelyada caasimadda ciidanka booliska inuu maanta ka warqabnaa ma aha koox la socota siyaasiyiin ama xisbiyo ee waxa weeyaan hanaanka dawladnimo gacantii midiga sharciga ciidanka booliska inuu maanta ognahay waxaan ka digaynaa inay noqdaan hay'ad la siyaasadeeyo oo la canaanto oo la ceebeeyo oo la dhaliilo tusaale ahaan haddaynu maanta soo qaadano ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa madax ka ah Generaal Maxamed Aadan Saqadhi dabagale oo aad wada garanaysaan qiimaha uu wadankan u lahaa sidoo ugu soo halgamay isagoo daayar sida uu ugu soo shaqeeyay 30 sanadood Soomaaliland iyo maanta oo halkii ugu sareysay gaadhay darajada ciidanka ee ah sareeya gaas marka waxaad ogtiin habla iyo hooyooyin iyo dhalinyaraba maxamed aadan maalintii uu halganka galay muu ahayn sarkaal dawladii Soomaaliya u shaqeeya manuu ahayn askari ka tirsan ciidamadii dawladii Soomaaliya faqashta ahaa waa naftood hurayaashii Hargeysa iyo hawdkaba uga baxay sidii ay dalkan u xoreyn laayeen darajada uu sitana sidaan ka warqabno waa darajo aan siyaad barre saxiixin waa darajo Soomaaliland la dhalatay waana ninka koowaad ee aan Soomaaliya soo shaqeyn ee noqday sareeya gaas
waxaan markaa halkan baaq dheer ka jeedinaynaa in quruxda dowladnimada Soomaaliland ay ku jirto wadada uu maray Generaal Maxamed Aadan Saqadhi oo kale wuu soo halgamay nabadgelyadii buu ka qayb qaato qorigiisii buu dhiibay askari buu noqday kulliyad ciidan buu galay military buu noqday maantana madaxda booliska habeenii maalin lagu seexdo ayuu hormood u yahay hawsha waxaan markaa ka jeedinayaa sidaanu taliyaha booliska iyo ciidanka boolisku ay ummadda Soomaaliland dhex ugu yihiin siday naftooda iyo dhiigooda u soo horeenna ay dib ugu sii huri doonaan inaga kaftanku wuu badayay tartankuna wuu badayay xilli xasaasiyaan joognaa doorashooyin baa loo diyaar garoobayaa doorashooyinna waynu ka soo baxnay waxaynu ognahay sanad ka hor laba doorasho isa saaran inuu dalka Soomaaliland soo galay oo ahay doorashadii baarlamaanka iyo tii deegaanka labadaasiba waxay ku qabsoomeen iyadoo la wada faraxsayay la qurux badayay la tartamayo la isku hanaynayo midhihii ay dhaleenna waynu ognahay waxa ku fadhiya golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee imiga muddadoodu saxda tahay doorashooyinka ku xiga ee ay ka mid yihiin ta madaxweynaha ta xisbiyada ta guurtida waxaan rajaynaynaa dhammaan howlahaas oo dhani inay noqdaan howlo nabadgelyo ku qabsooma walaalnimo ku qabsooma tartan ku qabsooma inaguna kii tartamayana aynu taageerno kii mataqaanaaye aan tartamayna inuu si qurux badan oo nabadgelyo leh oo uga qayb qaato tartamada doorashada sidaa daraaddeed nabadgelyada inaan xoojinaa soo waajib naguma aha dowladdeena Soomaaliland inay jirtay joogto soo diyaar uma nihin aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan idinku bogaorinayaa habeen dhaweyd waa la kaftamay waxa la yidhi hablu ha soo diyaar garoobaan bilaa calaykum hablaha waxaan u rajaynaynaa inay garabaha weyn noqdaan inay hogaaminta dalka qayb ka noqdaan inay iyagu hormoodka nolosha siday gurigaba u yihiin inay siyaasadana hormood ka noqdaan oo ay haldoor lagu la hiirto kale inay haweenku noqdaan waxaan xasuustaa xiliyadii xafiiska nabadgelyada joogay isku dhacyo siyaasadeed oo xisbiyada baa yimaada kacdoona la abaabula kacdoonadaasi waxa ka dhashay khasaare naf iyo maalba leh maalmo kadib waxaad arki jirteen iyadoo axsaabta siyaasiga iyo xukuumadii hore ay madaxtooyada bunisha ku wada cabayaan iyadoo la iska iloobayo dadkii ku dhaawacmay ama ku dhintay xasaradihii mudaharaadyada dhacay sidaa daraaddeed inagu miyaynu diyaar u nahay inaynu iyadoo la tartamayo dhimashiyo dhaawac yimaado aad iyo aad baad u mahadsantiin waan idiin mahadnaqaynaa dowladnimadan taageeraynaa muddo 30 sanadooda Soomaaliland waxa ku tartamay 5 madaxweyne 5tuba way isbedeleen madaxweyne waliba uu tagay madaxweynaha joogaana uu tartamay maalin uu yimid maalin uu tagi doonaa kuwa kale iman doonaana waa sidaas la mid ah madashan caawa aynu fadhino waxa laga yaabaa inay rag madaxweyneyaal dalkan ka noqon doona ay fadhiyaan iyo hablaba sidaa daraaddeed waqtigoo gaaban daraadii waxaan idinku boorinayaa qof walowba inaynu taageerno xasiloonida iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waana mahadsantiin